waraxmatullaahi wabarakaatu ardayda kusoo dhawaada casharadeenii imtixaanaha maadada xisaabta waxaan rabnaa in halkan ku sharaxno imtixaankii 2023 ee dowladda qaybtii su'aalaha tooska ah ayaan rabnaa inaan galno meesha aad iskaga fiiriso su-aashooda waxaa soo heshaa qiimahan soo helaa lagu yidhi find the value of cos 87 oo ku dhufsan cos 93 minus sin 87 iyo oo kusii dhufsan sin 93 haddaad u fiirsato qaacidadan waxay la mid tahay iyadoo lagu yiri kale cos a cos b minus sin a sin b qaacidadaas kala haajir marka waxaa lahayd cos a plus b soo maahayn meesha minus data cos plus a marka waxay u dhigantaa hal leedahay cos 82 oo lagu daray qaybtii dheerada qaacidada lagu siiyay macnaha qaacidadu la waxay cos a plus b oo la furfuray qaybtii iyadoo furfurana lagu siiyay marka soo gaabi marka oo cos a plus b qaacidada isticmaal a waxa ku 82 b na 93 oo ku bedelanay kadib cos 180 minus 1 la mid tahay sidoo kale su-aasha labaad waxaa lagu weydiisay x plus cos x dii la isku wargaray iyadoo ma la mid noqonaysa in 2x plus 1 in la proof gareeyo ma la cadeeyo verify wax xaqiiji laba dhinac in isla egyihiin marka waxaan sameynaynaa tanaan soo qaadanay oo leftiga xigta kadibna waa furfuraynaa qaacidadii waxaa isticmaalanaa a plus b soo maahayn a square plus 2ab plus b square soo maysan saas aan isticmaalnay sin to isku wargareeyo horta kadibna sin iyo cos isku dhufane 2ab meesha la dhahay waa sin iyo cos isku dhufane kadibna 2 ku dhufane 2 sin x cos x ku noqon waxa u dambeeya plus cos square kadib waxaan soo xijiyay cos square sin square soo xijiyay inta kalena inta mariyay kadib la hadday waa taqaanaa sin square plus cos square dil isku dar 1 la midi 1 lagu bedelinaya kadib waxa ku qoran meesha 2 sin x cos x qaacida kale meesha imaada marka sin double angle ama sin 2a ma qeylad soo ma ahayn 2 sin a cos a hadii la yiraahdo sin 2x idan waxay la mid noqonaysaa sin 2x waxay la mid noqonaysaa 2 sin x cos x marka 2 sin x cos x waxay u dhigantaa intaan hoosta ka xariiq waxay u dhigantaa sin 2x u dhigantaa wankaasna hadee xagga hadda marida dhimal xagga waa mari kartaa marka waxa soo baxayda sidii meesha kugu qorreedo ah sin 2x plus b soo baxay okay meeqa waxyaabada la bedeshay sin square plus cos square waa la bedeshay wana lagu bedeshay 2 sin x cos x na waxay u dhigantaa ayaduna sin 2x u dhigantaa waa lagu bedeshay marka 1 kadib waa ku sii dara intaas le waaye su-aasha saddexaad ku soo hartay su-aasha saddexaad waa complex number subtract kala gooya lagu yiri labada qiimood hadda wax ka minuska ku furay qaybtan hore sida soo wada qaybtan minuska ku furay meesha minus balaaska noqonaysa afarta kadib 5 iyo 3 oo kala go'ayaan laba noqon minus 6 iyo balaas oo kala go'ay minus 2 ay noqonaysa daartan calculator waa gali kartaa okay kasoo midi koona calculator waa gali karaa iska fiiri calculator isticmaala okay qaybta waxa laga rabaa modulus and argument ayaa laga rabaa modulus waa absolute value of formula waxa lagu helaa x iyo y isku wargareynaysa x waxa kugu taagan 3 ama real part ayaa isku wargareynaya iyo imaginary part marka isku wargareynaysa 9 lagu daray 16 ayada ma la soo qaat marka isku wargareynaya kadib waxay ku noqonaysaa 5 ay ku noqonaysaa argumentiga ama angle-kan waxa lagu helaa tan inverse ama shifty 2 ade kadib argument la soo baxay kadibna waxa gelinay 3 plus angle ku si ama waxa simaasha tan inverse loo isticmaali kartaa 4 of 3 kadibna intaan radian ayaa ku xisaabsan tahay 0.927 radian ayaa ku soo radian saar calculator taas waa halkaas su'aasha hadda u gudbo shanaad hadda u gudbo waxa lagu yiri use isticmaal quadratic formula si uu xalido equation kan waxaan example soo ayaga boog example aad ka fiiriyo meesha x square rabbidu waa 1a aan u qaadanay intana 4 kan b aan u qaadanay 5 na c aan u qaadanay qaacidadina waa tara b minus b plus or minus square b square minus 4ac oo loo qaybiyo 2a kadib waa ku bedeshay meel kasto a waxaan ku bedeshay 1 aan ku bedeshay meel kasto b aan waxaan ku bedeshay 4 meel kasto c aan waxaan ku bedeshay 5 minus 4 8 b laakiin hadii la isku wargaray marka 4 la iska noqon marka minus ka meeshaan ahaan hadii laba minus isku dhacay minus qaacidada iyo minus aan isku dhacay plus oo 4 ay noqonay kadib 4 hada isku wargaray waa 16 4 iyo 5 hada isku minus 20 kala jar minus 4 ku soo baxay minus 4 2 ay uga baxay kadibna laba u qaybinaysa meel kasta afartan laba u qayb laba u qayb afarta laba u qayb waa laba 2 hada 2 qaybin ay la soo baxay bas marka laba solution waaye 2 plus i waa solution 1 2 minus r waa solution ka labaad macnaha xisooyin kastoo kala yaalanaysa maadaama quadratic equation ay ahayd okay waa kaasa marka waxaan u gudbayaa su-aasha shanaad ayaan u gudbaynaa okay su-aasha shanaad hadan ka soo baxay lixaad su-aasha lixaad probability waa iska fiir waxa la car ayaa lagala baxay from standard egg of 52 billion cards kaarka lagu yar konta labada waxa soo sheegay probability kaarkaas lala baxay ku noqon karo diamond oo ku noqon karo diamond waa dhawaad taqaana 13 xabo waa kaarka dhan la konta laba waa marka 13 u qayb konta laba sample space isku fuday 1 of 4 waa su-aasha toddobaadna iyaduna waa probability waxa la box ayaa waxa ku jira 6 kubadood oo red ama casaan ah iyo 4 blue ah hadii laba kubadood lala baxo from the bag lagala baxo bag ama boorsada waxa laga rabaa probability ay ku noqon karaan
red ball and a blue ball ay ku noqon karaan without replacement iyadoo aan lagu celin aan meesha hadii soo gasho isku dhufasho iska ilaali without replacement ina wuxuu sheegay in kii hadii aan lala baxay aan lagu soo celin macna kala wada markii la baxay markaas oo kale sample space ka halka nusqaamaya oo waxay noqonaysaa dependent event waa laba dhacdo oo macnaha isku tiirsan waaye okay marka waxay noqonaysaa 6 oo loo qaybiyo 10 times 6 waa rarkii macnaha 6 xabo gudahood loo qaybiyo 10 sample space oo lagu dhuftay 4 oo loo qaybiyo 9 ka marka 10kii halka nusqaam sample space ka halka nusqaaminaysa meeshan kadib waa isku dhufanaysa isku fududeynaysa waa kaasa saas ay ku noqonaysaa su'aasha toddobaadkaas ayaan uga tagnay su'aasha sideedada ku soo hartay question 8 waxa lagu yiri iyaduna probability example waaye example ku jira la soo qaatay iska ilaaliyo waxa example si leeyihiin waxa la day of the week maalin ka mid asbuuc ayaa select la xusaa jirna waliba si cashwaayo aan loo meeldayn waxa laga rabaa probability ay ku noqon karto Thursday or Friday jimciga khamiis probability ama khamiis ay ku noqon ama meesha day soo gasho waa balance iska ilaali Thursday waxa lagu helaa 1/7 sababtoo waa hal maalin toddoba ka mid ah Soomaa toddoba sample space balance 1/7 kala lagu dara kadib waxa ku noqon 2/7 okay probability halkaas looga dhamaaday waxa la galay markaan iska ilaali su'aal sagaalaad waxa waaye calculate xisaabiya lagu the mean variance and standard deviation of the datadan 47 marka hore waxa soo saarana meanka soo saar x bar raadi x bar loo helaa oo isku dardaraysa inta ay yihiin u qaybin 5 xabo 5 u qaybin waxa ku soo baxay 48 kadib table kan yarka sameysana table muxuu ka kooban yahay x oo xogti ah haysatay x oo laga jiro x bar oo laga jiro x bar oo la isku wargelay marka mid kaas waxa ka jira 48 47 ilaa 50 mid walba 48 marka ka jirto kadib wixii kaga soo baxay square saaraysa kadib waa total grade 76 ku noqonaysa kadibna variance waxa lagu helaa summation x laga jiro x bar square oo loo qaybiyo xogta markay tahay group waa iska ilaali xogta markay tahay group hadii tahay baab kale 76 u qaybinaa 15 standard deviation waa iska tagaan waa square root of the variance waxa ka saaray wixii ku soo baxay square root 3.9 ayaa ku soo baxayda oo halkaas ayaan ku dhamaatay taasna waxa u gudubnay su'aasha tobnaad ayaan u gudubnay su'aasha tobnaad waxa waaye complete the table kan dhamaystir table kan markii hore waxa lagu siiyay intaas bas waxa lagu siiyay classes ka frequency-ga labadan waa ku banaan iska ilaali labadan class mark ay waxa ku banaan iyo class mark waxa laga wadaa x ayaa loo qaataa class waxa laga wadaa inta u dhaxayda labadan class oo la isku daro laba loo waa average ka macnaha upper class limit iyo lower class limit isku daray 10 ibra ku daray 10 waa 5 laba u qayb waa 5 dhigay 10 iyo 20 isku daray waa 30 laba u qayb waa 5 20 iyo 30 isku daray laba u qayb waa 25 30 iyo 40 laba saas ku wada macna waa buuxday line kan waa buuxday line kan waxa la sameeynaa f frequency waxa la isku dhufanaya class mago x 8 ku dhufanaya 40 12 iyo 15 isku dhufanaya 10 iyo 25 waa kana marka kadib meeqa meel total u sameeysanaysa f total frequency total u sameeynaa waa 50 fx total u sameeynaa waa 1260 kadib waxa su'aasha b waxa lagu mean soo helay mean lagu diray mean sida ku helay marka mean waa iska sahlayay waxa lagu helaa mean summation fx oo loo qaybshay summation f waa markii ay tahay xogta grouped ay tahay kadib ku bedelahay summation fx waxa haysataa 1260 summation f na ama frequency marka la isku daro waa 50 isku qayb waa 25 okay qaybtan su'aasha ku tobnaad ayaan u gudbinay waa limit waa to iska sahlan tahay calculator gali kartaa ama gacanta uga shaqee 1 + x ay haysta boos x 3 isku bedel x ku sii dhawaaydo kadibna 4 waa 4 2 uga baxdaa minus 1 tan lagu bedesho minus 3 isku gargada waa 1 minus balance ay noqon meeshaas 7 lagu sii daray kadib 3 number isku dar waa 10 okay waa kaas halkaas ay ku wada su'aasha 12 waxa la waa derivative function kan derivative ku sameeyo function kan derivative ku sameeyo derivative garanay marka 5 hore ku soo dhufo 15 jibaarkan hala ka jaray waa 4 tan hore ku soo dhufo waa 6 jibaarka hala ka jaray waa 2 4 soo qaad x derivative waa 1 marka 4 doo maray meeshaas okay su'aasha 13 waxay tahay waxa soo heshay maximum or minimum coordinates of the maximum or minimum soo hel stationary point way laakiin waxa laga rabaa in maximum iyo minimum u kala qaado waatana example ay ahayd buugay ku taala x cube minus 3x square plus 1 ku qoran marka hore waa derivative waatana kadibna waxaan sameeyay waxa soo raadiyay x qiimaheeda meeshan 3x aan ka saaray waxa uga saaray factor ahaan uga saaray 3x daa u qaybay meeshan x kaliya hareeyda hada 3x minus 6 u qaybay 2 hareeyda ama calculator gali kartaa x1 x2 soo saaray kartaa labadaba sameey kartaa kadibna waxaan 3x in 0 la kaysi x minus 0 la x laba dhinac 3 u qaybay x waxa la mid tahay 0 2 da wareej x2 waxa la mid tahay 2 kadib waa 1 soo saartay waa 1 sida lagu helaa original function kiya soo qaaday kadibna waxa ku bedelanaysaa 0 marka ku bedelto waa 1 ku soo baxay waa 2 hadda rabtana waxa ku bedelanaysaa 2 dana ku bedel x2 qiimaheeda ku bedelanay marka 2 ku bedeshay waxa ay soo baxeen -3 marka stationary point waxay noqonayaan waxay 0.1 oo x1 iyo 1 ah iyo 2.3 oo y1 iyo y2 iyo x2 iyo y2 ah
maximum minimum sidee lagu kala ogaa meeshaan iska fiiri waxaa soo qaadanaya x ta qiimayaasha kuu soo 0 iyo 2 samay 0 iyo 2 waa inta dhiganaysaa marka 0 number ka yar aad baraaweynaysaa waxa ku baraaweynaysaa functionka markii la derive gareeyo kadib tusaale 0 waxa ka yar -1 -1 inta ku bedelato waxay noqonaysaa 3 inta waxay 3 -6 minus ku soo inta hadda minus ku bedelato waxay noqonaysaa square ka baba -3 ay noqonaysaa inta hadda minus ku bedelatana -6 iyo -1 isku dhacaan waa +6 balasnayna ku soo inta waa balas la qortaa marka meesha number line isticmaalayna 0 waxa ka weyn 1 1 hadii inta lagu bedesho waxa soo baxa 1 inta dhig waa 3 inta 6 iyo minus ku soo baxay 2 wax ka weyn hadii la tijaabiyo waa 3 hadda inta ku bedeshana waxay noqonaysaa 9 27 3 ku dhufato kadibna 8 ma ka jiro balas ku soo baxay iyadana okay markaas ka ilaali plus to minus da aragto waa maximum sababtoo ah markii plus la yiraahdo kor u aad line kadib minus markuu gaarno uu soo laabana kan minus kana minus uu ka bilaabana hoos u aad kadib uu plus kor u soo laabana marka 2 waxay ku aadan tahay maximum minimum 0 maximum ku marka waxaan leenahay pointiga ah 0.1 ayaa wuxuu yahay maximum pointigan 2.3 na wuxuu yahay minimum point waa saas oo kala saaraysa okay laba su'aalood ugu dambeeya waa integration waxaa la xal integration ka xal 4x² marka waxa sameynaysa jibaarka hala ku dare intii kale waa u qaybina 2 hadii hal ugu dar waa 3 isla 3 kale u qayb meesha x tan powerkeedu waa 1 1 hal ku waa 2 2 kale u qayb x power 0 waa tan hadii hal ugu dar waxay x la noqonaysaa power 1 marka 9x ay noqonaysaa balaasina waa raacsiinay constants of integration ay waa raacsiinay kadib waa isku fududay wax isku fududay ma kan la isku fududay ma tan laba qayb leh noqon inta kale si soo qaad kana waxa way evaluate kan waa definite integral integration marka ka sarta kadib waxa ku sii bedelanay qiimaha 0 ilaa 3 waaye waa integrate gareey marka hore waxaan sameeyay halaan ku daro waa 3 and 4 kan x kan cube kan halaan ku daro waa 4 of 4 ayadu noqonaysaa kadib 0 ilaa 3 3 yan ku bedesho marka 3 meel kaas oo loo isku fududay 3 3 waa isla baxeen maxaa ku soo x cube minus x power 4 oo loo qaybiyo 4 3 aan ku bedelanaa marka meel kaas x 3 ku bedel marka ku bedelataa minus dheh hadana 0 dana ku bedelay 0 hadii lagu bedesho intaas oo dhan 0 isla noqonaysaa qaybtan la iska fududay 3 3 jibar waa 27 3 4 jibar waa 8 ku loo qaybiyo 4 4 27 ku dhufo 180 ku ka jar 4 oo si qayb 22 loo sii 4 noqon hadaarta waxa uu qoray mixed number oo waxa dhahay 6 oo number caadi ah 3 of 5 saas ma uu qori kartaa intaas ayuu ku eegay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.